Ghana, mid ka mid ah wadamada qaaraddan Afrika ee ku yaala galbeedka qaaraddan Afrika. Dalkani waxa uu dhacaa galbeedka qaaradda Afrika, waxaana ka bilowday rabshado kadib markii dad gadoodsan oo ka xanaaqsan lootiri ay xareysteen oo ay waayeen, ay shiideen isla mar ahaantaasina ay dhagax tuureen safaaradda waddankaasi uu ku leeyahay waddanka Maraykanku caasimadda dalkaasi. Ghana ayaa waxay dadkeedu sameeyeen kadib kuwii ku dhacay lootiriga inay weeraraan isla mar ahaantaasina shiid iyo dhadhaab ay ku qaadaan safaaradda dalka Maraykanka ee ku taalla waddankaasi Ghana magaalo madaxdiisa. Durbaaba lootiriga ayaa waxa uu Afrikaanka qayb ka mid ah u horseeday kala daadasho iyo weliba xaalad amni darro ah, kaasi oo Ghana ka sababay rabshado ay durbaba weerar ugu qaadayaan xaruntiisa uu Maraykanku ku leeyahay caasimadda waddankaasi ee safaaradda. Dadkani ayaa waxay dhammaantood ka gadoodsanayeen kadib markii ay ku dhaceen bakhtiyaa nasiibkii lootiriga.